Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan daawadayaal. Warka degdega ah aan idiin hayno ayaa ah bilaabashada duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Sidii horeba loo saadaalinayay waxaa bilowday duulaankii Ruushka, taas oo duqeymo iyo weliba qaraxyo ka dhacayaan gudaha dalka Ukraine, gaar ahaan caasimadda dalkaasi ee Kiev oo ka dhigan bilaabashada duulaanka. Saaka aroor hore waxaa hadlay madaxweynaha dalka Ruushka ee Putin. Putin ayaa yidhi waxaan go'aansaday inaan hubka ka dhigo ciidanka dalka Ukraine. Putin ayaa ka dalbaday ciidanka Ukraine in si guud ahaaneed ay hubka u dhigaan, taas oo ah wax lagu qoslo waqtigan la joogo. Warbaahinta CNN ayaa sheegtay in gantaalo lagu duqeeyay agagaarka garoonka diyaaradaha ee caasimadda Kiev. Sida la wada ogsoon yahay, Ukraine maaha dal yar, taas oo ka dhigan in weeraridda dalkaasi aanay ciyaar ahayn. Dhaweyd hadlay qaramada midoobay, dabcan iyagu waxay hayaan hadal keliya. Arrinka qowdaha waaweyn hadday noqoto way ka hadlaan, laakiin wax ficil ah ma sameeyaan. In aan wax ficil ah soo socona waxaa muujinaya ergeyda ka hadashay oo ah erga aan wax saameyn ah ku lahayn qaramada midoobay, kuwaas oo kala ah ergeyga Kenya iyo ergeyga Ghana. Wararkii ugu dambeeyay oo hadda soo dhacay ayaa sheegaya in sidoo kale ay qaraxyo kale ka dhaceen caasimadda Kiev, Donbass iyo Odessa, kuwaas oo Ruushku bartilmaameedsanayo kaydka hubka iyo xarumaha ciidanka dalka Ukraine. Ugu dambeyn, waxaa la saadaalinayaa in haddii dagaalkani uu sii ballaadho in uu dunida inteeda kalena saameyn ku yeelan doono dhan kasta oo ay ahaataba. Sidoo kale waxaa dunidu isha ku haysaa bal qaabka dagaalkani uu isu bedeli doono, iyo inay noqon doonto aafo qaran oo ku dhacda dalkaasi Ukraine iyo Ruushka, maadaama aanu dalkan Ukraine uu yahay dal run ahaantii ciyaar lagu qabsan karo oo dal adag haysta. Insha Allah wixii dhacdooyina soo kordhan halkan baynu ku wada socon doonaa. Fadlan soo dhawaada nagu xirnaada bal si aan ula socotaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacaya.